ciidanka huwanta oo gacanta ku dhiga deegaanka Ceelgaras oo ah buucdii al-shabaab iyo wararkii ugu dambeeyay xildhibaano ku dhintay miina kula kacda banaanka magaalada Somaliland oo shaacisay in ku dhawaad kun dagaalamo oo hogaaminayo Fuad Shangolo gudaha u galeen Laascaanood iyo xaqiiqada xogta warkan iyo Axmed Madoobe oo xasan sheekh dalbaday inuu ceyriyo wasiirka ka tirsan xukuumadda Xamza iyo sababta ka dambaysa arrintan qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa insha Allah waana isniin taariikhduna waa 11 bisha 9 sanada 2023 balse daawada marka hore muuqaalkan like saaro si shargare uguna soo biirsi degdeg ugu hesho akhbaaradkii ugu dambeeyay ee caalamka aynu ku bilownay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa maanta gacanta ku dhiga deegaanka Ceelgaras oo ah deegaan muhiim u ah kooxda shabaab Ceelgaras oo ah deegaan istiraatiiji ah isla markaana ubuuc u ah al-shabaab ayaa gabi ahaan maanta laga saaray dawladda ayaana sheegtay inay isaga carareen magaalada markii ay ka war heleen in ciidamada huwanta ay ku soo foolleeyihiin dhinaca kala qarax dhaliya qasaare aad u culus ayaa ka dhacay banaanka hore ee magaalada inta ciidamada huwanta aysan gudaha u galin qaraxan oo ahaa mid miina ayaa la kaca gaari ay saaraayeen laba mas'uul oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug qaybna ka ahaa dagaalka ka dhanka ah shabaab ee halkaas lagu qaaday mas'uuliyiinta inta ayaa lagu kala magacaabaa Cabdullaahi Ibraahim Shaaciye oo ka tirsanaa golaha deegaanka magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Yare oo ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug raggan oo ku baxay dhacdadaasi qaraxa miina ahaa warka soo baxa dawladda Soomaaliya ayaa arrintan looga hadlay dawladda ayaana sheegtay in al-shabaab laga saaray deegaankaas oo ahaa mid muhiim u ah kooxdaasi warkan ka soo baxa dawladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada qaranka ay hadda howlgal ka wadaan magaaladaasi ka saarista Ceelgaras ee al-shabaab ayaa ka dhigan guul weyn oo u soo hoyatay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee dagaalka adag xilligan kula jira kooxdaasi dhinaca kale hadii aynu eegnana waryaab loo ka soo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay in dagaalamayaal aad u badan oo hogaaminayo Fuad Shangolo ay gudaha u galeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Somaliland ayaa sheegtay inay xaqiijisay in ka badan 600 oo dagaalame oo hogaaminayo Fuad Maxamed Qalaf Shangolo oo kamid ah horjoogayaasha al-shabaab ay galeen magaalada Laascaanood labadii maalmood ee ugu dambeysay ogeysiis muhiim ah Forever Living Product oo ah shirkad ka shaqeysa kordhinta iyo kubcinta ganacsiga iyo sidoo kale taageerida ganacsatada yaryar ayaa markaan diyaar kula ah inay kugu dhiirigeliso ganacsigaada iyada oo fursado qaali ah u soo bandhigtay dhammaan macaamiisheeda haddaba wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir manager Sacdiye Xirsi oo muddo dheer ku jirtay ganacsigan sidoo kalena faa'iido weyn ka heshay waxayna diyaar u tahay inay caawiso bulshadeeda wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir taleefan lambarada shaashada hortaada ah kaaga muuqda Forever Living Product ganacsi la mahdiyay warka ka soo baxay Somaliland ayaa lagu yiri tani waxay walaac ku sii kordhinaysaa mas'uuliyiinta iyo muwaadiniinta Somaliland wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa sheegtay in bilihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ay la kulantay kororka weerarada dadaalada qorista maleeshiyaadka iyo faafinta daacayadaha xagjirnimada sida hadalka loo dhigay sidoo kale Somaliland ayaa sheegtay in walaaceeda ay hore ugu gudbiso beesha caalamka iyo hay'adaha kala duwan ee amniga gobolka maadaama dhacdooyinkan ay tiri waxay halis gelinayaan nidaamka bulsho Somaliland ayaa ugu baaqda beesha caalamka dalalka dariska iyo ururada gobolka ay qusayso arrintan inay gacan ka geystaan dagaalka ka dhanka ah shabaabka soo galaya Laascaanood dhinaca kale maamulka SSC Qaatumo ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Laascaanood ayaa arrinta waxba kama jiraan ku tilmaamay ugu dambeyntiina hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa hadal culus ka jeediyay munaasabad xal ka dhacda magaalada Kismaayo hogaamiyaha Jubbaland ayaa soo jeediyay in la wada taageero dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wali ku maqan jiida hore ee dagaalka wuxuuna ka codsaday qurba joogta Soomaaliyeed in wax walba ay ku bixiyaan sidii dagaalkaasi uu ku guuleysan lahaa Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu cileeyay dagaalka al-shabaab isagoo tilmaamay in wasiirada qaar ay iska jiifaan xaafadahooda isla markaana aysan qayb ka ahayn dagaalka ka dhanka ah shabaab waxa uu dalbaday in la ciriyo wasiirada aan lahayn khibrada dagaal isla markaana aan joogin furinta hore ee dagaalka kuwa uu sheegay in waxba aysan ku soo kordhin doonin dawladnimada madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale ku baaqay in si aan weecasho lahayn loo taageero dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uu dalbaday in loo midoobo hadalka Axmed Madoobe ayaa ku soo aadaya iyada oo wali furimaha dagaalka uu ku sugan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud walibana uu ku jiro nolol ka duwan tii uu ku haysta filla Soomaaliya guud ahaan barnaamij wareedkeena duhray maanta ayaa inta ku dhan daawada muuqaalka like saaro si shargare uguna soo biirsi degdeg ugu hesho akhbaaradkii ugu dambeeyay ee caalamka